وحالد نولوليد oo urku taalo kugu reebaysa marka ay indhahaagu qabtaan ayda waxa la cuntiba dadkan leeyahay markaasaan annaguna nolosha ka baxna halkani waa toga wajaale ee xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya waxa marba marka ka sii dambaysa ku soo badanaya caruurta darbi jiifka ah kuwaasi oo daahan aad u yar yar dadaal abana ma arag taliyo xididii damqada dadkana kuma lihi walaal waxaan darbiga dhibaatada waalid la'aanta waxa kale oo u dheer duruufaha nololeed ee ay ku nool yihiin caruurtani iyo daryeel la'aan dhinac kasta oo nolosha ah waa kuwa weheshada qashinka toga calafna la wadaaga xayawaanka ayda oo ah saaxiibka ugu dhow iyaga ma sahlana xaaladoodu magacayga waxa la yiraahdaa Khadar Cabdinaasir Daawud Umar annagu waxba nama siiyaan annaga hambadaas magaalada ka cunaa ama taasana booliskuna neeriyeedaan booliska maleeshaantuna neeriyeedaan markaana ina waxaan lagu qabteen doonaa hay'adda in caawiso qaar riyaaminaydi ku jira riyaamin ayaa nagu jiro iyo mid gacan goon waxaasaan nagu dhex jiro inaan waxaan iska baxno koorde xabag waxa ma tarto koorde wadnay ka diraysa si kasta oo nacamna abto koorde waxaan iska baxnaa adar koorde inkasta oo ay maankaaga taabanayso duruufaha adag caruurtani darbi jiifka ah haddana warwarka iyo waayaha qallafsan ee ay ku nool yihiin ayaa waxa arrin maskaxdaada xusuus ku reebaysa ah sida ay weli rajo uga qabaan in ay marun mustaqbalkoodu hagaagi doono isla markaana ay heli doonaan nolol wanaagsan daanimka nolol caadi ah imka danileen hooyada abeedan geleedin xageed ka timid marka hore anigu qabri bayax caruurtani darbi jiifka ah ma jirto cid wax uga qabata dadweyne iyo dawladba haddaba dadweynaha wajaale siday u arkaan duruufaha nololeed ee ay ku nool yihiin caruurta darbi jiifka ah ee ku soo badanaya toga u dhaxeeya xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya wax loo dhalinyaro dhan gaas darbi jiifta toga dhalinyaro aad u fara badan baa ku nool dibadda wax u qabta oo dareeyata magaalada ama saxreeya oo lagu xareeyo sameeya wax qabad xoog u baahan wadiga ka xabagta weestaan toga dhexdiisa jiifan waxay u baahan dad wax u qabta inta doonto waxa noqoso labada qaybood marka intii ganacsata caawin karaysa inay caawiyaan dadka darbi jiifka saakinta magaalada Togo Wajaale waa magaalo ganacsiye dhaqaale ahaan kamid ah magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan leh Soomaaliland laakiin ma laha xarun lagu daryeelo caruurta darbi jiifta ah amba agoomaha mana jiro qorshe dawladeed oo wax lagaga qabanayo xaaladda caruurta darbi jiifka ah ee Wajaale Sakariye Nuux Ibrahim laanta afka Soomaaliga ee codka bariga Afrika magaalada Wajaale